ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo isgarabsanaya iyo kooxda al-shabaab ayaa dagaal culus ku dhex maray deegaano hoostaga degmooyinka Bacadweyne iyo Wisil ee koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanada Qaycad, Qorile iyo goobo kale oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ugu raad joogeen ciidamadu kadib weeraro qorsheysan oo ay garinkii hore ee maanta ciidamada huwantahay halkaasi ku qaadeen waxayna ciidamadu la wareegeen deegaano horle kuwa oo qayb ka ah howlgallada ay ku xoreynayaan dhulka gacanta al-shabaab ku jira dagaalka maanta ayaa ahaa mid ballaaran waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan xog dheeraad ah uga helno ayaa waxaan qadka taleefanka kula xiriiray wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falegle wuxuuna sheegay in ciidamadu ay sii baacsanayaan kooxda al-shabaab isagoo xusay inay jiraan khasaare ka dhashay dagaalka maanta bal waxaad faahfaahin naga siisaa dagaaladii saaka ka dhacay koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan koonfurta degmada Bacadweyne waxa wararku sheegayeen in dagaala xoogan halkaasi ka dhaceen halkaas bariyaha wajibta dagaalo wajibta ka qoran oo koonfur iyo waqooyiga ka xiga koonfurta ka xiga maxaan ku dhahdaa Bacadweyne oo dhul ballaaran oo iyo tuulooyin iyo goobo badan xeelado dhagaxdo marka goob Qaycad yiraahdo oo ay fiishay waxa ka wadaya saaka suuxdo markii dabara waa la keenay oo way kala carareen marka badanaaba deegaanka kale ee hoose qof iyo amaaraya ayaa shalay waxa ay deegaan lagu baaxsanayay wuxuu deegaan geedo badan leh ay bulshooyinka ay soo aadayeen oo ay dalba ku daadanayaan marka meeshii laga saaro markii lagu bedelo waxa laga qabtaa shaqo dagaalka loo qabtay ayaa daba meel saaro loo qabtaa hadda xaalku waa deegayahay meel saaro baa ka socda deegaanaas oo qayb kala duwan ah dagaalka ka socda marka hadda ciidamadii dawladda iyo kuwii dawlad goboleedka Galmudug deegaanadii ay hore ugu sugnaayeen ma ahna deegaano kale ay gaareen miyaad leedahay deegaanada ilaa shalay ilaa saakatole wadada waxa ku soo qaadanayo deegaano badan marka wax loo baalayo dhulku ma badan yahay oo gaar afartilmaameed waa weyn laakiin ciidamada dalka hore sii socda maadaama dhul aad baaxad weyn uu dagaalku ka socdo wasiir saacado badan uu socday bal ka waran qasaaraha dagaalkaasi ilaa maanta qasaar waa jira waxaan weli waxaa lagu jira ciidamada amniga oo wixii dagaalkooda hadda wax yar ka hortaboobay ayaa waxa ka sugaya waxyaalaha gaaray oo hadda dhaawac noqon jirto geed badan mid taasoo waxay dhaawac dhaawac waa ka yaraan karaa ka badan karaa laakiin waxaan dala taxadiran dawladda meesha ku jira ka saar istiraatiijiyadda ciidan ama yoolka dagaalkan laga leeyahay muddo socdaa wasiir ka waran sida ciidamadu maadaama ciidamo badan oo kala duwan ay goobta ku sugan yihiin ama ay iskula jaan qaadi karaan dhulku uu hawd yahay halkaasi ciidamada ma laga yaabaa inay ka soo wajahdo ama dhul aqoon xumo oo markaasi ay dabac ay halkaasi ka timaado ciidamada iyadu aad u gaashaaban yihiin saraakiil ugu kalsoon yahana hoggaanka u haysa qaybo kala duwan oo ballaaran ayay jiraan waxa laga soo horjeedaa waa dad hadda kormaarka hadda meel guurayo hadda meel yahay ciidamo kafool oo maaragtay ciidamada loo barbardhigaa ma jiraan dhulkuna waa dhul biyo badan iyo tuulooyin ay cid hore joogeen oo dadku waa iska baygagsay oo telefishinada iyo qaabka baygankaas ayaa iska jira laftigooda dadka laftigooda ayaa maaragtay xilli jiidaala ku jira iyo xoolooda tuulooyinka waa daadsan yihiin arrimaha noocaas oo sidaas waxyeeladooda inta kale ciidamo waxa uga soo noqonayaan iskama soo horjeedaan ugu dambeyntii ka waran shacabka deegaanada ay ciidamadu qabteen ayaga khasaare ma soo gaaray sideese dadkaasi loo maareynayaa dadku waa dad xoog lagu haystay oo aad loo baqdin geliyey oo aad moodida markii loo yimaado in maaragtay Soomaaliya aad uga dhexsay marka nidaamka ka faa'iideysanaya qorshaha dawladda waxa uu deegaankii gacanta loo qabto in dawladdu ay joogto dadku ay weerarshadaan lagula soo celiyo amniga ka dambeeya meesha baabuur uu ka jiray maamulka meesha kale laga dhiso dadka waxa uu sheegayaa in la bayicidooda qorshoodu yahay علي معلن تلفزيون كون كيبل قال كعيو